الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسؤولينتي وفتجان ودسعني هي مسؤولينتي هالكن نجاها هرتمي صحافة دمانتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش قام وراء صاوي أن مدة أسبوع كله بأنه مقنين وحنو هن وفتك كوبان labada xusbi qaran ee xusbiga ucid iyo xusbiga kulmiye waxaanu ka ciidnay dalka Kenya magaalada Nairobi sida lala wada socdo baryahan waxa lagu jiray qabanqaabada iyo daraskii arrimihii maxaan ku dhahdaayeen doorashada golaha wakiilada. Arintaa waxa bishii hore halkan inoogu yimi safiirada dawladaha reer galbeedka oo 7 safiir ahaa iyo safaaradahooda shaqaalahoodii ayaa halkan yimi xusbiyada qaranka way arkeen oo daraskaasi marka halkaas ka soo bilaabmay in hawlaha gabagabeyntooda marka xusbiyadu ay isla soo dhadhaweeyaan in Nairobi aan maxaan ku dhahday ugu tagno. inta badan waxa la ogaa in uu muddo sanadkii hore ilaa bishii March ilaa imika 14 bilood xusbiyadu ay wada hadal ku jireen ku saabsan arinta doorashada oo ay ahayd inay xilli hore oo bishii March sanadkan ay dhacdo ilaa inta waxay dib ugu noqonaysay oo hadda soo gaarsiiyay in xusbiyadu arrinka ay isla dhameyn kari waayeen. aakhirkii hawsha wixii la wadaba markii aanu wadnay labadan xusbiye iyo kulmiye waxay isla garteen doorashadu inay waqtigeedii qabsoonto, komishanka doorashada inay la shaqeeyaan, iyagu inay doorashada u diyaar garoobaan. sideedaba doorashada waxa qabanqaabiya iyo waxa wada waxa weeye waa komishanka doorashooyinka sharciga u leh. xusbiyada doorashada marka iyagu waxa weeye in uun komishanka doorashadu qaabka ay u sameeyaan iyo doorashada ay qabanayaan ay ka qayb galaan. arrintaa waanu tagnay qoladii dawladihii reer galbeedka ahaa ee halkan nagala shaqayn jiray qaybna ka qaadan jiray doorashada Somaliland. si fiican baanu wada hadalay, 2 kulan oo ballaaran baanu la yeelanay. arrinka annagu dhinac ayaga waxaanu oo daraskayagii iyo go'aamadayadii iyo doorashada u diyaar garoogayagii ayaanu labadan xusbi halka geynay waanaanu ka qancinay in doorashadii komishankuna hawshoodii ay wadaan annaguna aanu diyaar u nahay. waxa kaloo noo weheliyay inaan dalka Kenya aan la xidhiidhno madaxda maxaan ku dhahday dalka Kenya oo aan ka wada hadalno in la kordhiyo korna loo qaado xidhiidhka labada dal. madax fara badan baanu aragnay, waxaanu la kulannay maxaan ku dhahday labada gudoomiye ee baarlamaanka waxay leeyihiin nidaam ah gudoomiyaha aqlabiyadda iyo gudoomiyaha minority-ga. labada mas'uul waanu la kulannay, waxaanu la kulannay ninka awoodda faraha badan la dalka kule oo inuu karaan labadooda xusbi ay dawladda wadaag ku yihiin Raila Odinga oo mar horena halkan maxaan ku dhahday inoogu yimi. waxaanu kaloo la hadalay agaasinka guud ee maamulka madaxweynaha dalka Kenya. waxaan ka wada hadalay arrimaha xidhiidhka dalka in kor loo qaado oo diyaaradda Ethiopia waxaan leeyahay Kenya ee mar hore loogu talagalay inay halkan yimaadaan in diyaaradda la furo, in baasaboorka Somaliland lagu tagi karo dalka Kenya, in xafiiskii maxaan ku dhahday safaaradda u noqonayay ee dawladda Kenya halkan laga sameeyo way nala qaateen. waxaan rajaynaynaa inay dhawaan arrintaas maxaan ku dhahday ay iman doonto. wixii kale waxaan ku wareejinayaa imkana Faisal gudoomiye Faisal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. horta ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala ilaahay kaligiina abuuray mahad leh. waa soo idin sheegay magaalada wasiirku labada ishuuba meesha aan ugu tagnay dalka Kenya. taas waxa weeye tamar daraanteena dad commission doodiisa sanadii 2 bilood qaadatay waxay isweydiinaysaa dal xukuumad daan u wadi karaan commission ku heshiin waayay taag daraanteena taas ka marxaad ka caysa wixii doorashadii 2017 dhacday
إلى هذا المرة كيلو تاجنا هذا waxaa wax tusaysaa inaynu ahayn dadan capacity u lahayn inay wadan wadi karaan ba asaas oo iska garab fulaanina waxa weeye arintu waxa weeye waxaan sheegnay inaan diyaar u nahay doorashada waxaan u sheegnay inaan diyaar u nahay qodobada aanu gaadhay xusbiga wadani wuxuu consent ka qabo inuu la diyaar inuu soo bandhigo precisely wuxuu halka ka qawadsan yahay qodobada soo gaadhay أنا ولي وجه الله ينصح أي وصل رمضان ميسك وضع هذا حاجة كلنا طبيل في عم باشرته طبيل في عم باشرته وما كان صاي إنه حقيني أدونك الله سبحانه وتعالى يعني كوكينين تعب إلهي سبحانه وتعالى تتكينا مساكين تاع صدق الصنع أفرتك الصنع للصنع طبعا سنين هلكن كجرتين يصدق إنه صدق سنة ومقبل اعترافهم دتكينا أعطاك ريسيلينت كأ أي الله سبحانه وتعالى قلوبته إنه شقي إنه احترامي مكا هو ترتفع عن قضوفي عن بانكين لسوقهن إن شاء الله إنه وتشينو وحنا كتر سنان تشينو ودمدي إنجليز كوسي من شري ما هو ودمدي يوغندا iyo magaalada Kenya iyo Tanzania basaddex waxaan jecelahay insha Allah taala inaynu xiriirkeena soo ceshiinaga soo celino waxaan inoo waajibay inaynu danta wadanka qaranka ummadda ka horeysino danta magaalada baadhiga xusbiga amba shakhsiga taas guul ugu gaari kara iyo in dadku inay isku dul qaataan isxamilaan wada shaqeeyaan wanaag isfaraan xumaanta la iska nahiyo ayaa horta guul ugu gaari kara dadka la mideeyo umad qaybsan geedkan ma gaari karto حنجعل إن شاء الله تعالى أنا نقول أنا نقولين كوي عام بحة إن الدتك كلا قريبية إلهي وحنك بني ونقدر كوي الدتك بدية إلهي نقدر دورنا لمستوى الكينة هذيك نوع قريبة كل دينه من ميديا ما كان هذا استقف حماه وهذا قف وجه الدلك حماننا وحيك السنة قرنا ولا تجمية هم ودينا كل جينا دون كنا ولا هاي وأركتينه لما كان الصومالي يا سومالان شنطة صومالي مال يكونوا شاهد مال دمر كودو عيتميان أو رير اسكو عيتميان إنكم بتشرنا ومجتمعين في سوماليا رجع دمر كا عيتم حلنا هاي والرجل ما يقبصان ده وعيب ومضبع عيبين يعني إن نجا أمسيان بقول وميون كم يشتكسوا حد الفيسبوك عيتميان عيبتيني بدي بدأ تعالى عيبتيني بدي بدأ تعالى ما عيبتينا قاعد جروس بقى أرضعه وحين قوسون وينه وين هوس على اللي قد هاك ميديا يلا مرين والسلام عليكم. محمد كان أحمد أيان هل سؤال ويديني عثمان محمود بورمدو أو كم إذا صلاتين السمالة واحد كله واقع إن شرنا ولا قبنا يبيلها بريق بريق قبل أريد شركة سي سديد لمو شركة هو شيء أنا كهذي سياسي سياسة معها أنا كل باب بيلا الشريو معها مرنا شيء أنا شرتم مرنا بربر شرتم مع هذا وحال وحالنا وقلدية مكان سبقركو ومدة بقر مقايبي ومدة تكون مدايا تكون لا مدايا كاس هو اسكيد ومدو وليد way shiri jirtay oo wixii reer ahaa dhaxda axmar way shiri jirtay laakiin BBC laga ma sheegi jirin wixii xaalad ah in la siyaasadeeyo laakiin ma oo korba reer loo heshiiyo adeer waxaas oo la ka fiican wax laga fiican weey shirka sidaad u aragtaa shirka boqorku shirka maxaan ku dhahday qof keligii reer shir uma qabto annaguna shirarka reeraha nama saameeyaan samaad garaneen marka cidda ay hadhow ta khusaysaa baa la weydiinayaa laakiin arrimaha laga hadlayaa waxa weeye reeruhu waxay ka hadlaan nabadgelyo waxay ka hadlaan maxaan ku dhahdaayay dadka mideyntiisa shirarkii ka socday eriyadaas ee inta badan la soo waday waa kuwii lagu soo afjaray ee magta kun iyo googa maxaan ku dhahdaayay halaada lagu bixiyey عيل فين كسر شرمي كانوا كورهنا كاوي موقفك حكومة لكلنا كسياسيين الصومالية موقفك واحد حوجا أنت أتخير قديسة كقدم كريم ما يعني مكروفك يا صحافة أنت أتخير دكتور إن تحس بكشانة ويكوقف يعني أنت فيصل يري فيصل يري أي كوكتر صوماليا شبهده hubaysan oo rag la garanaya ku jiraan ayaa farmaajo ay u samaysteen Somaliland
cid Somaliland dawladda farmaajo mucaarid ku ah hadday Somaliland la kulatay dembi maaha halkaad ka qodaysana ma taalo مدير القدومية محاسرة مقعد وبتر كوسار محمود هل سؤال عيان تعالى إنا كويديو لبدينا حسبي أعيد يكل مية وحقوانا قادتين إن أدور شذا وقت كذي قبطان حسبي وطني معارض كأيا إذا كم قن حسيا شيء دولته إذا كتاجري يتقالها دور شذا مية إذا لقاتين إن لبدينا حسبي أي تقالكم بحيان دور شا كوكشان دولته وحي عاوية أصحاب معاوية قرن بعاوية دور شي عاوية marka qaran anagu tashaqo kuma oo diyaar inay dawladdu bixiyaan wixii kaga soo hagaagi jiray qaran bay caawiyada xisbiya macaawiya xisbiya baan caawin jiro ka maqan meesha ma imanayso dadka waan si fiican u qabanay ayaga dabadina riixaya doorasho dhacdo way doorashadan insha Allah taala xisbi kana insha Allah way iman doona asxaabtii ragii musharaxiinta dumarka waxaan leen istiyaar gareeya insha Allah taala December ka gaarsiina commission waqtigiisa isna shaqo qabsado wadankan wuxuu ku socon karaa in doorasho qabato doorashadu ma xidnaanayso horta qodobkan arrinkan hore wax laba xusbi oo doorasho qabanaya ma jiraan doorashada saddexda xusbina ma qabtaan labada yadan imika halkan joogaana ma qabtaan doorashada waxa qabta komishanka doorashooyinka kaasaa dastuurku u igmaday sharciyada ka dheegmaana ay u igmadeen annaka labadeedan xusbi wuxuunaanu diyaar u nahay doorashada imika December dhacaysun baanu diyaar u nahay komishankanna iyaga doorashada qabanaya international community-guna ucud iyo kulmiye iyo wadani lama macaamilayaan international standardka arrimahan lagaga macaamilo marka la eegayo waxay la macaamilaan dawlad Somaliland waxayna la macaamilaan hay'adii loo igmaday inay hawshan fuliso in dadka la marin habaabiyana maaha in si khaldan dadka wax loogu sheegana maaha annaka doorashana loo qabanaya labadeedani ma jirto qolihii qaranka ayay awoodan lahaa ayaa wuxuu ku asteeyay in doorashada la qabto 13 December cidda qabanaysana waa komishanka annagu xisbiyada diyaarun baanu nahay ciddii kala shaqadeeda maaha سعاد وزير waxaan ku weydiinayaa waxa la kulatay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo marmar sharax madaxweynaha noqday gudoomiye xisbi mucaarada ah ee wasiirna ka soo noqday Soomaaliya jawaabtu waxay tahay su'aasha weydiinaya waxay tahay marka ay siyaasiyiinta xisbiga wadani la kulmaan saraakiisha Soomaaliya qayla ayaa baxda ila xukuumadda ka hadasha idinka markiina maxaa xalaaleeyay xukuumaddu ay la kulantaan marka wadani uu la kulmana ولا نيكا سو غادو الله كلمه دي انا الله كلمه كاله انا الله كلمه سو لما كلمه انا وشكله دم سو لو يبو شاهب ku cabeynaa wax ogaataan cadowgay waa saaxiibka your enemy is your friend farmaashina jabadu inoo sameeyay jabadu anagu laakiin si ilbaxnimadii mucaaradkooda ayaan la sheekaysanaa anoo mucaarad baan nahay معارض كانوا يجينا وحبانو برينا سيدي لوجا تخصص لها فرماشنا كشغالين نادان هنعد يوحي حنا نروحهم بقى ده وضنا عرّا ولي ما لو قصت تصويرك هو فرماشنا ما عرفت سو هوس بوغشنا النيجاتيف نو شيء قدلك لكن أنا بوزيتيف ماشين ولا دورنا محوس القرنية مو سياسة حديث راكيل وضنا إيه مكايل كل وضنا وعرّا ولي إذا كنا ما عرفت ولا شيء قاوين ولي تصوير ما قبض محوس القرنية حلال وحلا حاشا ما أنا بلغشة أنا أقول لكن فرماشنا ولا كلنا أنا على خليف بي سام ورهني وحنقول ورهني بل طبعا جربوا فرماشنا كلنا لا دور شديد بنقول هالشيء